سلام الله عليك mana ballantays mana weydo ninka faysta soo xidhay maxaan dhawray maanta waa dhaway waayahay waxaan wada daawanay wada aragnay fiimo heesisa ninkii hebel soo xidhay maxaa dhawrar maanta waa maxay way faantay Soomaa kadib salaxsan wuxuu sameeyay waa iska dhaqaaqaba waa nin dab uu ku iska tagay waayahay waa sababta ay ku wanaagsan tahay fanaaniinta sidoo kale wariyaasha inay siyaasadda ka madax banaanadaan inay noqdaan dad noloshooda iyagu u madax banaan oo xor ah oo sababta ku wanaagsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka si share gareeya markaad ku horeysan soo martaan dadka wax ka codsan daawada markaad muuqaalkan la garaysaa ma share gareyso in meel dheer gaari doono soo dhawaada waayahay warabiyo intaan taariikh oo iska deeliya taako jaraya waayahay saaxiibayaal caawa ama maanta xilligii ku tahay waxaan noo wada amaan doonayna ka hadlo arrin ku saabsan fiimo qooje oo markii ugu horeysay ka hadashay arrintii malyanmaanka iyo sidoo kale salaxsanaag oo goob wax wada ku wada dubeen tabaarkaas saaxiib daldan warantina ka hadlay soo dhawaada waxay kaga jawaabtay waxay ka tiri ayaan doonay bal caawa ama maanta xilligii ku tahay inaan isla eegno oo isla maadhigno oo bal saaxiib aniga sidii la muuqatay adiga kula muuqataba bal aan isla eegne horta soo dhawaada muuqaalka si fogeeya markii ugu horeysay muuqaalka أنا وضع طاون. سلام الله عليك. mana ballantays mana weydo ninka faysta soo xidhay maxaan dhawray maanta waa dhaway waxaan wada daawanay wada aragnay fiimo heesisa ninkii hebel soo xidhay maxaa dhawrar maanta waa maxay way faantay Soomaa kadib salaxsan wuxuu sameeyay waa iska dhaqaaqaba waa nin dab uu ku iska tagay waayahay waa sababta ay ku wanaagsan tahay fanaaniinta sidoo kale wariyaasha inay siyaasadda ka madax banaanadaan inay noqdaan dad noloshooda iyagu u madax banaan oo xor ah oo sababta ku wanaagsan tahay waayahay bal hadana muuqaalkan saaxiibayaal bal isagan aan wada daawano isaguna sidoo kale waxa weeyaan nin qaas ma xiraado iyo dhalinyaro kale oo garanayay malyanmaanka u jawaabaya bal iyagana horta markuu qorayso bal muuqaalkooda waa kan iyagana wada daawano markaas waxay jawaaba ama waxa la taamka qabno aan ka bixin karnaa horta bal muuqaalka waa kan leeyahay horta ma dhiman tahay adiga maliyun madar sharmo walaadaada waa loo ogid markay heesta qaadaysa markaas sadqa qaban lahayd waxba anaga mujaahid fiima soo dhaw hadawaan salaam wax leeyahay islaam bar wiil dhashay wiilkii hadli waayay markaas wactooda ilaa wiilkayga hadal si inuu maanta dawlad galay hooyada waa sitire waamsi hadda gabadhii malyanmaanka say u joogtay warigeeda taashidiisa lagama aragay وبا واحد تروان هيسيايو لا سوري سنادي عين نايا horta ma dhiman tahay adiga maliyun madarqta lagu qaata mise darbigaad ka booday meel isla mariyay dawladda miyadan ogeyn meeshan 3 kun oo wiil la fooday in kun u dhimantay in dumarka wali asayda sidaas ay wax ka noqdeen naade inaan yarwad nagu gaftay aborti soo bixi saaqinta inta ma tahay ka badan boolanahay ubadkoodii baan haynaa hadana siinkiya safka wala kala saara wixii la wada leeyahay dhalashadu tahay wixii la kala leeyahay kala saar maliyunay absolutely أنا أدري أنك قدرت كوا عدبت كوا يصد الشيء أدري هذا ما أدري هذا ويقول حتى قبل هذا الكليه هذا دو قرن ودين ما أدري هذا هنا نمن دارو ذي نما كبر الله حوارتي ويقول حتى قبل هذا كان لكن في أنا أدري أنك قفتي حاجة بورت شيء صبحي وسنحين لحتى ما كذا مريكم مرسو ساعات ما حسيت طبعا هذه هذه قصة عليه لكن في ما يهدي مر وشرم بوي ورالي قلم شرم ولاد هذا ولو إنك يستقال سمك صدق قبل لها وحنا عندنا نوصو ها قبضة هلا دايلتين ما يا قبضة بياخد شيء وصو سعوتا قبضة وحي أحد ما كيوغور سيهس الدول سنة ردنا ياستم وحنا كان لسه ركبة قبيلة وقري كوا باركي رجوعه مليون أي وتصور قانصة يدب الرقانسان كل هرات صوص وبالهرة وانا شن تاني ميكا خاو مايا كمان waayahay saaxiibayaal muuqaalkan wada daawanay waxa weeyaan fihimi waxay u jawaabtay jawaab cad siisay gabadha lagu magacaabo malyanmaanka ay leedahay in adeer soo iyo sanadii hayn waa soo waamaysan yahay ama soo magaranaysa durugtay dad baa u dhintay ama dad baa u nafoobay waayahay sabab waxaan joognaa Soomaalidu ay sabab waxaan joognaa Soomaalidu qofka soo mujaahid yahay qofka soo walaalkiisa oo ku shiido dilay walaalkiisa wax yeelay hadana mujaahid yahay aynu joognaa runaantii waayaan raadi weyn marka xaqiiqo hadalno runaantii marka dhabta ka hadalno waayaan raadi aad weyn
sababta waxa weeyaan qof walaalkaayo oo dishay oo aan sina ku dilay oo isdishay mujaahid ku noqonaysid waa fahamtay Soomaha reer sool iyo waxaan leeyahay hal maadaan leeyahay ama reer asaanan hal maadaan leeyahay horta in badan oo hore halkan isku jiideen maanta ma jiidinayna saaxiib inuu arrinkaas siyaasadda oo farax ka qaaday talab wayel balisiiyay arinta waan daayay laakiin hal tan aad siinaya mar walba aan walaalahay baatan waalidina ka harin mar leey oo aad wax wanaagsan sameeysan waa maroodi ku wanaagsanaataan haday maanta aslaysan Soomaaliland inteedii kale iyo hadad walaalo kale Soomaaliland aslaysanba mujaahidiin kuma noqonaysan sida oo kale Soomaaliland iyo dadkeedana wax leeyahay hadii aad kuna dad Soomaaliyeed aslaysan oo mujaahidiin iyo qababa iyo qaraacad wax ku cuntaan kuma cunasaan isaga taag banad leeyahay qof walaalka Soomaaliya dhiiga kula wadaaga oo dhacaanka kula wadaaga oo walaalka primiyalka tagna cid kaaga tag ogahay ninka Soomaaliyeed nin walaalkana cid kaga tag dooni ama kaga tagayna ogahay runtii mujaahidna kuma noqonayo warwaa fahamtay Soomaha inta waxay haystay waxaan la mid tahay hablihii reer Soomaaliland iyo soo kale garow ka heesay la socno dimanay marba ku wada joogay la taatalta warwaa fahamtay Soomaha reer asaanan tasanayaan jawaabin siinin balse laakiin taa ku tabaax ayaan leeyahay waa fahamtay saaxiib al Soomaha baladkuna saad aragtaan muuqaalka ila sii wadaaga oo sii sheergareeya oo meel si gaarsiya soo muuqaalka dad badan u daawadaan aad iyo saaxiibana ma hasantiin oo kuma hasadala joogtaan kaliya midashina soo dhawaada waalidii mahad celinaya mahad celinteeda ugu balaaran baad ku mahad celinaya thank you so much bye bye